munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu guddoonsiinayay 40 arday oo dhamaystay wadida baabuurta kana bartay dugsiga barashada wadida baabuurta ee Shayba Driving School ayaa maanta waxay ka dhacday Hotel Race ee magaalada Boorama. munaasabadani waxa ka soo qayb galay maamulka gobolka Awdal ka degmada Salaadiin waxgarad iyo mulkiilaha Shayba Motors waxaana halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin kala duwan waxaana hadaladooda kamid ahaa wuxuu soo kordhiyay magaalada iyo gobolkaba in gaadiidka deegaanaysa marka qofku u baahan yahay inuu saaxiibku ka doonto maaha inaad kareysan kartid in aad ku saari karto inaad ku sii baran kartid kada Shayba Motors aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa cilmigan ay noo keentay waa cilmi loo baahnaa weeyaan xaaladaha gobolkeena kulli waxa weeyaan dadkii hore ee Soomaaliya soo gaaray weeyaan waxa tababarka dadka aqoon ama fikirkaasi uu nagu yaraa waxaan wadaanaynaa nabadii loo keenay halkan wax ka bartay marka baabuurta inay digirti ay calaamadaha weeyaan badbaada qofka wax cusub weeyaan oo ilaahay lagu mahadiyo oo horumar waxaan aad iyo aad ku taageerayaa oo u bogaadinayaa oo qaliyanayaa ninka Shayba fikada Shayba ay naxasuusay ina baabuur la kareysto ina wax la barto waxa ugu horeeya waxa dibbiga ka badbaadaysa muudad haleysiga gaariga waa ma ila uska soo baxay sidoo doona waa waxyaalaha xalaadka inaysan ila taxadirka habboodooyin loo wado waxaan baraatoo kale uga faa'iideystaan kuna kulisaan oo qaybkiina ila sabab idinku yeeshaan أبيات ومحسنين ونبنهم علينا. اليوم مثلا يوم شهادتي يوم ليسكي يوم كم سنة كم سنة فصلنا في بعلوية وهاي الكيتو من دول البحرين لا تكون حسكرة بالكيار شكلها إلى هذا السنة الحسية. waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah ardaydii wax ka baratay dugsigani. aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa maanta anigoo ka mid ah qalbiyaasha Shayba Driving aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka shirkadaasi raggu marka ay u baahdaan driving-ka ay bartaan wadada gaariga in ama ay saaxiibkii ama ay geerish ay tagi jireen laakiin ayna haysan haweenku fursad ay ku bartaan kiyo guriga u yaalo gaariga hadda si Shayba waxay noo soo kordhisay fursad aan ku barano maanta isagoo gaariga noo yaalo guriga sidoo kale waxa isaguna halkaasi ka hadlay maamulka Shayba Motors Kayse Cabdi Shaybe insha Allah waxaan ku dadaalnaa donation ka Shayba inaan magaalada horumarkeeda ka shaqeyno inaan wixii aan hawsha ku saabsan tahay aan horumar walba ka sii kordhino insha Allah ta'ala saasan jirnaa aad baan idin salaamayaa markii sharafka waxaan aad iyo aad u salaamayaa ardayda sharafta leh si kastaba ha ahaatee waxa markii uu horeysay shahaadooyin iyo liisanka baabuurta lagu guddoonsiiyay ardaydii ka soo baxday dugsiga wadida baabuurta ee Shayba Driving School waxaana dufcadani noqonaysaa dufcadii ugu horeysay ee ka qalin jabisay dugsigaasi maxamed cabdilaahi dabshid cadeed.com magaalada Boorama.